بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتها قيمة بدنو كسودو كورسا مقاسمين. وكفر حسنا رنتي إن أتلقن جبتو. أنت أن قدها وقالين هوش قروه ده أن فهي رانكاسيو وح أي تاي مقاسمين تا إيه وحياة لو باهي هاي إن أدقاته. أنت أن قدها وقالين هوش مقال جرجريدا. يقلصوا شاشة قيمة تدن. waxaan marka hore ka bilaabayaa ka jawaabidda su'aasha ah waa maxay video editing ama muuqaal samayn. Muuqaal samayntu waa isku keenid muuqaallo kala duwan, codad, sawirro, qoraallo iyo waxyaabo kaleba si loo sameeyo hal muuqaal qurux badan tayana leh. Tusaale ahaan ka soo qaad marka la sameynayo doolshada oo ah qayb ka mid ah cunto karinta, waxaa la isku keenayaa ukun, biyo, bur iyo waxyaabo kale si loo sameeyo hal shay macaan badan, caraf badan loo yaqaano doolsho. Muuqaal sameyntuna waa intaa oo kale. waxaa la isku keenayaa waxyaabo kala duwan si loo sameeyo hal shay qurux badan, dadka la hortagi karo, loona jeedin karo haddii loo baahdo. Waad dareemi kartaa waxyaabaha doolshada ay ka samaysan tahay aan ku soo sheegay. Haddii midba gaarkiisa loo cuno ama loo cabo, oo tusaale ahaan biyaha gaar loo cabo, ukunta gaar loo cuno, burka gaar loo cuno, macno weyn ma samaynayso. dhadhankii doolshada la yaqaanayna ma imaanayo. laakiin isla inta oo la isku daray oo nidaam la marsiiyey, qaab la yaqaanana loo sameeyey, ayaa waxaa ka soo baxaya wax qurux badan. Video editing-kana waa sidaas oo kale. waxaa la isku keenayaa waxyaabo kala duwan, waxaa la marsiinayaa process ama shaqo ayaa la gelinayaa. shaqada kadib waxaa soo baxaya wax qurux badan, tayana leh, dadkana loo jeedin karo ama lala hortagi karo. anigoo intaa ka ambaqaadaya, marka doolshada la sameynayo, waxyaabaha la isku keenaya ayaa waxa la marsiinaya shaqo ama shaqo ayaa la geliyaa, howl ayaa laga qabtaa. ayadoon howshan laga qabanna ma imaan karto doolshada. saas la mid ah muuqaalada kala duwan, codadka, sawirrada, qoraalada la isku keenayo si hal muuqaal loo sameeyo waa in shaqo la geliyaa. haddii aan shaqada la gelinin oo muuqaalada la jarjarin oo codadka la dheeraynin ama la gaabinin ama guuxooda la yaraynin, qoraalada si qurux badan loo xardhin, ma imaanayo muuqaal qurux badan. marka aan soo koobo, muuqaal samayntu waa in la isku keeno waxyaabo kala duwan sida muuqaallo, sawirro, codad, qoraallo, effectyo, transitions iyo waxyaabo kale oo kala duwan si loo sameeyo hal muuqaal qurux badan oo aad u macaan badan sida doolshada oo kale.